Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri leâyâtin li ulil albâb. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo fulinaya himiladiisii xilliga dheer ayaa furay masjidka Taqsiim oo uu ka sii hadlay 27 sano ka hor xilligaas oo mucaaradkuna ay ballanqaadkiisii ku jeesjeesayeen. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu jimcihii maanta 28 May 2021 u suura gashay inuu arko rabitaankiisii iyo himiladii uu ku riyoonayay, taasoo uu shaaca ka qaaday 27 sano ka hor isagoo xadhigga ka jaray maanta masjidka Taqsiim oo uu dhismihiisa laga bilaabay 4 sano ka hor fagaaraha weyn ee Taqsiim oo ah meesha caanka ee loo dalxiis tago ee magaalada Istanbul. hormudyada baraha bulshada ee waddankaasi ayaa waxay wadaageen sawirro iyo fiidiyoyo masjid gaara kaasoo astaan u noqday shacabka dalkaasi iyo hanaanka dowladnimadiisa xilligan. inkastoo horjoogayaal badan oo Twitter-ka oo ku sugan waddankaasi Turkigu ay xuseen in masaajidka Taqsiim uu yahay riyadii Erdogan oo rumowday oo run noqotay, haddana waxay dib u wadaageen muuqaal duug ah oo laga duubay Erdogan 27 sano ka hor markii madaxweynaha Turkigu uu ahaa duqa magaalada Istanbul. muuqaalkana waxaa lagu arkayay isagoo leh waxaan halkan ka dhisi doonaa masaajid. muuqaalkana waxaa laga arkayay isagoo leh waxaan halkan ka dhisi doonaa masaajid, taasoo xilligaa kicisay dadkii ka soo horjeeday ee ka tirsanaa xisbiyada cilmaaniga, halka hadalladiisaasina ay war wanaagsan u ahaayeen taageerayaashiisa xisbiga cadaaladda iyo horumarka oo iyagu tallaabadaa u arkayay caddayn muujinaysa rabitaanka siyaasadeed ee Erdogan oo isagu maanta jimcihiina runteedii la gaadhay 27 sano kadib. hormuudka Twitter-ka ee gudaha Turkiga ayaa sidoo kale u dabaaldegay furitaanka masjidka iyagoo isugu hambalyeeraya, waxaana ay xuseen inuu noqday waxa ugu muhiimsan ee ka dhisan aagga loo dalxiis tago ee Taqsiim ee magaalada Istanbul. magaca masaajidka ayaa ugu sarreeyay Twitter-ka mowduucyada ugu badan ee laga hadlayay maanta, waana masjidka Taqsiim oo qaadi kara 2250 qof oo cibaadaysanaya, badkiisuna waa 16,500 mitir oo iskuweera, waxaana uu ku fadhiyaa dhul gaaraya 2428. Sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Rabbuha bi kabulin hasenen sırrına mazhar eyle Allah'ım. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılıp da kabul olan duaların zümresine ilhak eyle Allah'ım. Milletimizi, memleketimizi her türlü kazalardan, belalardan, felaketlerden, düşman istilasından muhafaza eyle Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş hocamıza duaları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurdele kesmek suretiyle Taksim Camii'mizin açılışını gerçekleştirecektir. Efendim yerimizde kalsak. Efendim biraz daha geri gidebiliyor muyuz?